السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله سود هذا مقال كان ير ومقالا آد ولا يا ورنتي إن وهرين سبر كاسي آد وجيدان نكاسي سود حرن هالكاسي فريق وحق هيها ما ملك قبل كبنادر كيرب ير إيكو سي آد وجيدان وحرمتي قبل كجوده هيدا مالين دويد أي واحد على حرمتي قبل كبنادر إن ور أي كسوق قادان رجوا ويسن labadaas wiil aad u jeedaan ee bistooladaha ku weysan waxay la dagaalamayaan raggii halkaasi soo weeraray waa labadaas wiil waxay staff u yihiin xogayaha gobolka Banaadir ee aad sawirkiisa halkaasi kor ugu jeedaan labada wiil runtii waxay kala sitaan laba bistoolado oo min 15 qaad ah runtii aad iyo aad ay u dadaaleen isla markaan waxay ku dhex sugan yihiin xarunta gobolka gudaheeda qaybta kore ayagoo halkaasi difaac ugu jiro waxayna waad u jeedaan ninkaas halkaasi ka soo socda jarjaro soo koray waa ragga halkaas weerar ku soo qaaday xabada iyagoo xabada ku sii riday ayuu hadana ku sii socdaa ninka uu dhaawacan yahay waad u jeedaan uu soo socdaa dhiigiisa ayaa daadanaya waad arki doontaa dhiigiisa wax yar iska sug waad u jeedaa jarjarada fiiri dhiigiisa uu daadanayo ayagoo xabadaha ku sii wada xabada ku sii ridayo ayuu hadana weli ku soo socdaa waad u jeedaa wiilka halkaan ayay soo galayaan labada wiil mid waa kaas waad u jeedaan wuu dagaalamayaa waad u jeedaan midka kalena waa kaas ayagoo xabada ku sii ridayo ayuu ninkii ku sii socdaa midda aan la yaabo fajac ila noqotay ayaa waxa ay tahay ninkan xabada lagu sii wado oo hadana soo socdo runtii labada wiil aad ayay u dadaaleen horta labada wiil way dadaaleen waa laba wiil oo geesi ah runtii maalintii sida maqalna maalintii xaruntan weerarka lagu qaaday dadka lagu baxsaday ayay ka mid yihiin labada wiil mid ayaa dhiman doona midka shaarka cad ayaa dhimanayo qol ayuu galayaa qolkii ayuu ugu dabagalayaa ninkan dhagar qabaha ah dhiigiisa sidoo dhulka uu daadanayo waad u jeedaan labada wiil mid ayaa dhintay mid ay dileen labada wiil midka kalena waxa umaleynaa inuu daaqad ka sii boodo runtii labada wiil aad iyo aad ay u dadaaleen labadan wiil waxaa ciilay ma aysan haysan hub waaweyn bistoolado ayay intaan ku dagaalamayeen oo ay dad badan ku badbaadiyeen ayagana isku badbaadiyeen balse midkan shaarka cad ayaa wuxuu galay qolkaasi aad u jeedaan midka kalena gadaal ay u soo baxaya waxaan u maleynaa in daaqada inuu ku boodo ay ku boodo marka midkan qolka galay ayaa nasiib xumo midkaasi ayaa dhimanayo qolka ninka dhagar qabaha ayaa qolka ugu soo galayo uu soo socda ayagoo xabada ku sii wado xabadaha ayagoo ku dhufanayo waliba ninkan dhagar qabaha u jeedaan qori wata ee dagaalmay qolka ayuu soo galay oo jeeda qolka fiiri qolka waxa ku jira wiilka shaarka cad watay ku jiro nasiib xumo qolka ay uu galaya dhowr xabado ayuu ku dhufanaya asigana xabado uu iska difaacaya uu soo xabadayna intaas yar kaamirada ma aysan qaban kaamirada banaanka kale iyo duubaysa qolka isku xirna uu soo laabana mar labaad ayuu soo laabana wiilku uu nool yahay uu mintadaya labada wiil way dadaaleen balse hubki ayaa ku yaraa midna halka dambe ayuu sii gudbay daaqad halkaas ayuu ku sii booday runtii labada wiil waxay staff u yihiin xogayaha gobolka Banaadir ee sawirkiisa u jeedaan ee halkaas kor saaran waa staffkiisa qaaska ah ninka uu soo laabtay mar labaad qolka uu galaa labada wiil way dadaaleen balse garab waa u jeedaa xabado kale ayuu ku soo dhaftay markuu albaabka sidaas u furay xabado ayuu ku horkeenay wiilka soo dhaawac ah markaas ayuu sina rasaastii ku soo furay ninkan waxaa iga yaabiyay ninkan inta xabado ku dhacaysa oo dhiigiisaas u dhiig baxay oo aan marna dhiceynin oo aysan nafta qabanin waa mid kaliya aan ka yaabay bam ayay soo tuureen wiilka ayaa weli mintaday bam ayuu soo tuuray wuu isku aamini waayay wiilkii qolka uu galay ayaa weliba sii mintadayo weli inuu nool yahay aan jeclahay wuu sii mintadaa marka wuu isku aamini waayay bam soo galiyay mar labaad bam kale wuu soo galina hadana qolkii uu furaa
wuxuu rabaa inuu wiilka sii dhammaystiro nasiib xumo uu dhammaystiray wiilkaasi waqtigiisa intaas ku ekaa balse mar labaad waxaan u malaynaa inuu bomba soo tuurayo laba ayay ku socdaan way iskala qeybiyeen marka labadan ayay ku mintideen labadan wiil oo xoghayaha staafku ah ayagoo weliba hubka noociisa yar yar sita maanta hadday hub fiican haysan lahaayeen uma malaynayna nimankan inay ka guuleysan lahaayeen balse ninkan waxaan kala yaabay bamlabaad soo tuuray oo jeedaan waxaan kala yaabay ninkan intaan xabado ay ku dhacayso sidaas u dhig baxaya oo aysan marna nafta qabanin subxaan allah